qofii cod waad ogtihiin cid iiga adkayd ma jirto dalkana u diyaarsan oo weli wax walba diyaar yihiin baa waxa la yiri ka joog ma soconayse waan aqbalay meel shabaab haysto oo shayaadiin ku hirdamayso oo qabaa'ilkii oo dhan iswada laynayaan oo hubkii faraha ka baxay qofka soo taagan qofii cod baan ka qabanayaa madaxweynaha uu uga dhawaaqay masaajid gudihiis haddii doorasho qofii cod la qabto inay Puntland burburayso 24 maalmood gudahood waxa golaha wada tashiga qaranka ka socda ma aha wax ummadda Soomaaliyeed danteeda ah waxaan runtii nasiib darro ah in madaxweynaha uu uga dhawaaqay masaajid gudihiis haddii doorasho qofii cod la qabto inay Puntland burburayso 24 maalmood gudahood waxa dadka reer Puntland iyo xukuumad iyo dawladba ay cadeeyeen in doorasho qof iyo cod Puntland laga qaban karo iyadoo aanan wax dhiba dhicin hal qof ku dhiman qof xagtin ku gaarin maxaa yeelay waa qodob dastuuriya iyo doonis shacab runtii arrintaas waxay ahayd arrin Puntland ay tijaabisay doodayna waxay ahayd Puntland maanta diyaar u tahay marka saddex degmaal la qabtay oo xukuumaddii ka horeysay xilligeedii waxaan diyaar u nahay tijaabadaas inaan anagu galno kadibna isteediyada kale la geeyo madaxweynuhu wuxuu ku adkaystay in la yiraahdo hal doorasho la qaban hal gudina wuu qaban dastuurka way ma waafaqsana runtii waxa halka ka soo baxday dastuurka la isku waafaqsanaa inaanan diyaar loo ahayn in lagu dhaqmo waxaan filayaa muddadii u dambeysay Puntland inkastoo go'aano ka qaadatay laakiin aad bay uga gaabsatay inay ka hadasho maanta waxa cad doorashadii Puntland loo diiday lagu khasbay inay doorashadii nidaamka hore ay ku noqoto oo waliba kharash badan iyo qalalaaso badan oo muqdisho laga soo aloosay oo qayb ka ahayd ilaahay mahadiis markii aan aqbalnay oo galnay maanta waxa taagan in isteediyadii kale leeyahay midii annagana lagu khasbay ha gelinina tii noola diidana leeyahay gala waa wax runtii aad looga fajaco maanta waxa leeyahay isteediyadii nidaamkii doorashada hore ha qabsanina waqti baa lagu darayaa waxa qabsoomi doonta mid qof iyo cod Puntland oo sida la ogyahay abni ah diyaarsan wax 10 sano ka badan ka shaqeynaysa shuruucda iyo nidaamkaas ayaa waxa la diiday inay qabsato waxaan halka runtii dadka Soomaaliyeed rabaa inaan u bayaaniyo waxa golaha wada tashiga qaranka ka socda ma aha wax ummadda Soomaaliyeed danteeda ah Puntland meel danta Soomaaliyeed lagu hayo kamana tagi doonta hadii ilaahay laakiin waxa noo soo baxday golaha wada tashiga qaranka hadda jira sida uu dhigan yahay inuu nuxurkii beelay waxay Puntland mar walba garab taagnaan doontaa cid kasta oo doonaysa inay sharciga iyo dastuurka ku taagnaato waxaan rabaa halka inaan ka cadeeyo inay Puntland garab iyo gaashaan ugu noqonayso dawladda Jubbaland oo goosatay inay doorashadeeda sida sharciga iyo nidaamkeedu yahay ku qabsato waxaan ku boorinaynaa guddiga doorashada ee Jubbaland inuu doorashada Jubbaland qabto waxaan ka xumahay muddo dheersiga hore u dhacay oo runtii xilligaas inaan anagu ka hadalno aysan munaasab noo ahayn duruufiyahan ku jirnay waxaan maanta halka rabaa inaan fariin ugu diro dhammaan mas'uuliyiinta dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ah mas'uuliyad baa ka saaran ilaalinta dastuurka ay lagu doortay dastuurka dawladaha Puntland iyo Galmudug iyo Hirshabeelle waxa mas'uul ka ah madaxda loo doortay ee dawladahaas dawladda federaalku waxay ku korjoogtayn doontaa haddii dastuurka ay dhigteen ay hareer maraan laakiin dawladda federaalku ma aha laha awood iyadu ay ku baajiso ama ay ku ogolaato ama doorasho ama xeerar kale oo dalkaas deegaanadaas ay leeyihiin qof iyo cod
waad ogtihiin cid iiga adkayd ma jirto dalkaana u diyaarsan oo weliba wax walba diyaar yihiin baa waxa la yidhi ka joog ma soconayse waan aqbalay meel shabaab haysto oo shayaadiin ku hirdamayso oo qabaa'ilkii oo dhan iswada laynayaan oo hubkii faraha ka baxay qofka soo taagan qof iyo cod baan ka qabanayaa runtii waa arrin dana gaara laga leeyahay dalka waxaad ogtihiin darafka daraf ilaahay baa midug ka badbaadiyey waxaa laga abuuray colaad sokeeye qabaa'ilkii baa isdilaya gobollada dhexe waad ogtihiin waxa ka socda gadow waxa ka socda gobollada Soomaaliyeed waxa ka socda runtii arrintaas waa arrimo la abaabulayo oo runtii ay siyaasiyiin ku leeyihiin arrimahaas waxay u baahan yihiin in dadka Soomaaliyeed hoos u eegaan xilligii waxa la joogaa dadku tashan jiray xilligii waxa la joogaa qofka fursadda la siiyay haddii uu wadada sax ku mari waayo wax loo sheegi jiray meesha dawladda federaalka hadda ku socoto xildhibaanadii halka joogana waa faraya saaxiibadooda reer Puntland iyo kuwa kale oo deegaanada kale ka yimidna fariinta iga gaarsiiya meesha dalku ku socdo beel sax ma ah idinkaana u dhaartay shuruucda maalin walba ama idinkoo maqan durbaanka intii lagu dhafo la dhahay waa ansaxay ama idinkii intii la caadifeeyo waxaan jirin in la sheego aad gacanta iska taagaysaan hadda annaga gar inagama qaadaneen inagama aqbaleen waxaydan akhrin oodan hubin oo hoosta ka xariiqin hadda ansixisaan mas'uuliyaddeeda idinka iska leh